boqolaal banaanbaxayaal ayaa maanta iskugu soo baxay jidka weyn ee magaalada Cadaado kuwaas oo dhigay banaanbaxyo ay ku dalbanayeen inay helaan maqaamka magaalada Cadaado. Banaanbaxani oo dadkani ku dalbanayeen inay helaan maqaamka magaalada Cadaado oo ay ku doodayaan inay tahay magaalada Cadaado xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug sida darteedna loo baahan yahay in doorashada maamulka Galmudug lagu qabto magaalada Cadaado. qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa dhigay ayaa la hadlay warbaahinta oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka sidoo kale haweenka. horta caasimada Galmudug xasan sheekha magacaabay annaga ku qanacsanayn uu dhinac ka doox oo loo dhameyn Galmudug lana dhisin asaa dooxay markuu dooxan waxaan isnir waa war madaxweyne ilaa hal mar madaxweyne buruf nooga siiyaan taagnay asagaana marka ka yiri xarunta baarlamaanka Galmudug waa Cadaado maadaama uu sidaas yiri haddii uu asagu diido oo shaqay wayso ka yeelimayno ma waalna markuu wax ka sheegay ma ka yeelayno waxa ay leeyihiin oo dad kale ku raali gelinayaan ay u ogolaadaan haddaan intaas la ogolaan waxaan cadaynaynaa inaan go'aan ka qaadanayno wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ayaad ma hadsantiin waxaan ognaa dad badan oo mudan inay wali la sugaayeen shirka dib u heshiisiinta toona dad annagana matalaana uusan ka qayb gelin waxaanu cadaynaynaa halka kan ayaa xaruntii baarlamaanka madaxweyne farmaajo ayuu u magacaabay caasimaddiina waxaa u magacaabay xasan sheekh maxamed annagu waxaan qayb labada madaxweyne oo kala dambaysay ninba teetal cabbu meel ku magacaabay wixii dad daris nala walaalahana la siiyey ma haysano waxaanu haysanaa wixii madaxweynaha cabdullaahi farmaajo uu noo sheegay wuxuu sheegay inay tahay xarunta baarlamaanka halkaan ay ku shaqaynayso intaas baan uga fadhinaa madaxweynaha ay weeye khilaafka Galmudug ayaa cirkaas ku sii shareeray marba marka ka dambaysa kadib markii uu madaxweyne xaaf dhamaaday xilkiisa dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayayso inay dhisto Galmudug cusub. Ismaan Maxamed Axmed, telefishinka caalamiga Saab, magaalada Cadaado.